الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. They said the sadaqah of the children, it will definitely reach the parents in their graves. And that's why I advise you, my dear brothers and sisters, whenever you give sadaqah, imagine quickly your parents, whether they are alive or dead. Include them in your intention and give sadaqah on their behalf. Allah Jalla wa Ala is rich. He will give the ajr for the sadaqah 700 times. وَيُضَاعِف, and He might increase more than that. This will not diminish your ajr. So don't worry about the ajr that I need to give it on my behalf only. ومسحراتي يلف يدور وصوته يسبق خيط النور ومسحراتي يلف يدور وصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh. waxaa lagu guda jiraa tobankii hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisanaynaa inta hartan inuu noogu dhameeyo si qeyr fara badan isla markaasna uu naga dhigo kuwii markaasi ka faa'iideysan. rabaa inaan idin la qaybsado dhammaan asxaabteeda fikir yar oo igu soo dhacay isla markaasna fikirkaasi aan idinka la'aantiin aanan hirgelaynin isla markaasi aan suurtagal ahayn, laakiin haddii aad idinka igu caawisaan oo aad idinkuna igu taageertaan fikirkaas oo ah ciisi caruurta ama ciisi walaalka oo aanan awoodin in uu ciido, aanan haysanin qarash ama markaasi aanan haysan dhaqaalo oo markaasi ku iibsado dhar iyo wax walba uu doonayo. adiga i daawanaya hadda waxa laga yaabaa in aad qarash walba aad heli karto isla markaasna aad waxa doonto aad ku iibsan karto, laakiin waxa jira walaalka leh ama caruur kale oo Soomaaliyeed, hooyo kale oo Soomaaliyeed intaasiba aan awoodin. marka adiga hadda i daawanayo waa inaad dhahdaa alxamdulillah, sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey nabadin aad u fara badan, waana in aad ku mahadida si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu siyaadiyo. haddaba barnaamijkani ciisi caruurta ama ciisi walaalka ma aha barnaamij aad u culus isla markaasina aadan adag tahay inaad ka qayb qaadato. barnaamijkani aad ay u fudud yahay, waana sanadkii ugu horeeyay oo markaasi aan jeclahay inaan markaasi tijaabiyo ama aan sameeyo. haddii ay suurtagashan insha Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo inaan markaasi joogteeno oo aan sanad walbana insha Allah aan dadka walaalaheena iyo caruurteena markaasi aan ugu faa'iideyno barnaamijkan ah caawi walaalka ama ciisi caruurta. hadafkayga ugu weyn waxa waaye hadda fikirkan insha Allah aan ku bilaabayo 50 qofood oo 100 korona 50 qofood oo 100 korona. barnaamijkan insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan rajaynayaa in qof walba oo asxaabteeda kamid ah iyo walaalahayga iyo familkayga dhammaan dadka aan asxaabta ku dhahay social media gaar ahaan Facebook iyo waliba Snapchat inuusan noqon barnaamij markaasi culays idinku ah. kaliya waxaad u baahan tahay lambarka iswiishka oo haas ku soo qori doono inaad markaasi aad ku soo iswiish gareyso ama aad ku soo dirto 100 koron oo kaliya. 100kaas oo koron ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa rajaynayaa inuu xaqiisa kaaga dhigo mid aad markaasi qeyr fara badan aad ku hesho, isla markaasina uu kugu barakeeyo maalkaaga adduunyo oo ma aragtay arsaaqadaaduna uu kaaga dhigo mid waasic ah. insha Allah aniga ayaana markaasi wax walba iyo warbixin walba iyo inta aan markaasi lacaga oo markaasi iswiishka ku soo dhacay la soo socodsiin doono. waadna ma aragtay mar walbana waa la socon doontaan, waana arki doontaan qaab walba aan markaasi aan hadhow wax u sameeyo insha Allah. kaliya waxaan rajaynayaa insha Allah inaad walaalaha kale aad gaarsiisaan idinkuna aad ka qayb qaadataan insha Allah biidnillaahi alkariim. maadaama hadda lagu jiro 10ka ugu horeeya ee bisha Ramadaan, barnaamijkani wuxuu socon doonaa 10ka hore, 10ka dhexe iyo 5ta ugu dambeeyay. sababtoo ah 5ta dambe ee bisha barakeysan waxa waaye waxa la gali doonaa isku diyaariska maalinta ciida. marka si aan markaasi anaguna aan u gaarsiino dadka walaalaha barnaamijkani loogu talagalay ayna u farxaan inaan insha Allah waqti fiican aan gaarsiino insha Allah ayaa rajaynaa sadaqadaasi oo aan markaasi walaalahooda Soomaaliyeed aan ugu aruuri doono insha Allah. dhammaan asxaabta jecel inay barnaamijkan ka qayb qaataan waxa insha Allah ka codsan lahaa oo kaliya in marka ay soo dirayaan iswiishka qaybta hore ee fariinta ama bedelandiga lagu qoro inay ku soo qoraan ciida
ama ciida caruurta ama ciida kaliya si aan hadhow ugu aqoonsado inay tahay lacagta loogu talagalay ciida sadaqada insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inay fahanteen oo aad insha Allah ka faa'iideysan doontaan aadna gaarsiin doontaan walaalihiin oo kale waana rajaynayaa insha Allah in konton qof ka badan ay ka qayb qaadan doonaan barnaamijkani maadaama uu yahay barnaamij khayr ah oo qof walbana uu khayrka u jecel yahay inuu ka qayb qaato konton qof iyo 100 karoon fikir walbo qof ayaa bilaabo laakiin qof kaliya wax ma qabto insha Allah barnaamijka aan ka qayb qaadano wixii fikir iyo talo iyo tusaale insha Allah waan soo dhaweynayaa qof walbo insha Allah barnaamijkan ka qayb qaatana aad iyo aad ma sha Allah ayaan ugu mahadcelinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka badan insha Allah soo galiyo dhamaantan insha Allah ramadaanka khayrkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala hana waafajiyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi رمضان